بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديوغان ما أركتين waa dagaalyahanada Xamaas mid kamid ah oo tunnel ku dhex jira oo ka hadlaya inta dagaalka uu socday inta tunnel ay dhiseen iska daa wixii hore u jiray asaga dabcan waa ay dileen Israa'iil ayaa dishay arrintaas aan ka hadli doonaa biidin Allah taala iyo asagoo tunnel ka soo dhex hadlaya sidaas oo kale video cusub ay Xamaas soo deysay xabuuskan iyo ma aragteen videoga xalay maanta Al Jazeera iyo warbaahinta qaar ay ku celcelinayaan ciidamada Israa'iil oo hadde Xamaas rag ah isku heleen guri dabaq ah iyo wixii dhex maray wallahi videogaasi waa video cajiib ah Urdun oo mamnuucday xarakada Ikhwan al-Muslimiin hadda ogow waa xarako weyn baarlamaanka Urdun xataa ku jirta arrintaasna isdul taagana biidin Allah taala iyo sidaas oo kale madaxweynaha Suuriya oo hadlay Japan waa China ayaan ula jeedaa oo baroobaysay hub cusub culus aan ku bilowna laakiin hal mar arrintan Faransa iyo Israa'iil kollay way muuqatay in la isgali doono laakiin qaabkee ayaan cidna ogeyn laakiin haddeertan Faransa waxay ku dhawaaqday inay joojisay gargaarkii ay siinaysay Israa'iil sabab haddii Israa'iil Faransa isku dhereerisay ogowna Faransa waxay siisaa gargaar hub ah iyo lacag inta way siisaa almuhim Israa'iil waxay ku jawaabtay cid alla ciddii naga soo horjeysata ama wax ay dabcan nasiin jirtay joojisa macnaheedu wax weeyaan Iiraan iyo Xamaas iyo argagixisada la jirta waa hadalka hadda ugu horeeyay ay Israa'iil dabcan sheegtay laakiin nacam waxa lagu tilmaamayaa arrintan inay tahay darbaxsho weyn oo Faransa dhinaceeda ka timid lamana filayn kollay ma laga yaabaa inay ka laaban doonaan waa laga yaabaa laakiin sidan ba in loogu dhawaaqo la sheego waa arrin culus oo cusub aan ku xijino hubkan cusub aadka u dabcan saameynta badan nuclear aan ahayn oo China ay baroobaysay dhinaca iyo badda ay ku baroobaysay waxaa lagu tilmaamayaa dabka hubkaasi uu shidaayo yani bahal kilogram inta la eg yani hal kilogram yani oo kale kaligiisa haddii xataa مثلا hubkaasi meel lagu qarxiyo wuxuu qarxin karaa ama gubi karaa hadda hal kilogram aan ka hadlaynaa ilaa iyo 200 ilaa 300 oo mitir yani نص كيلومتر تقريبا كدوات ايا هل كيلوغرام كليا معناها غوبيسا waxaan dhahaynaa bambooyinka adi laba bambool isku daro oo kale yani kilogram waa taqaan hal kiilo yani intay la eg tahay almuhim China way isdiyaarinaysaa waxay isu diyaarinaysaa nacam waxay isu diyaarinaysaa waa loogi hadde ayaamahan ayadii Mareykanka aad isu hayaan oo waliba meel aad u adag ay maraysaa Mareykanka diyaaradihiisa maraakiibtiisa ugu khatarsanaa dhinaca soo geeyay China aydan xoogeeda soo bixinaysaa almuhim xaaladaasi wataa haddii aad tahay qof raba inuu guri ka iibsado magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Parklands waxaan ku hayaa shirkadda dhista guryaha casriga ah ee Afnan Homes Ltd xilligan shirkaddu waxay wadaa dhismaha guryaha ama apartmentyada kala ah Kawaakib 1 iyo Kawaakib 2 guryahan waxay ka kooban yihiin 2 qol iyo fadhi 3 qol iyo fadhi 4 qol iyo fadhi ilaa iyo 5 qol iyo fadhi oo intooda bana markaasi uu la sii socdo qolka shaqaalaha oo dheeri ah marka laga reebo 2 qol iyo fadhiga sidoo kale adeegyada guryahan kugu raaxsan waxa kamid ah masjidkii madraso gym supermarket meel ay caruurtu ku ciyaaraan iyo sidoo kale waliba beer lagu nasto nidaamka lacag bixintana waa mid aad u fudud waxaad lacagta ku bixin kartaa muddo 2 sano ilaa 3 sano si tartiib ah kaybsashaduna waa mid la isku haleyn karo sharcigana waafaqsan hadba haddii aad su'aalo kale qabto fadlan la xiriir taleefanada meesha ku qoran ee shirkadda Afnan dugsiga Albadal Quraan Online oo ah dugsi lagu barto diinta Islaamka isla markaana ardaygu muddo aad u kooban ku xifdiyo Quraanka Kariimka kuna baranaya barashada higaada afka Carabiga baranaya culumta kala duwan ee Quraanka Kariimka iyadoo loo raacinayo qaybaha kala duwan ee shariicada Islaamka ugu waaweyn yahay barashada xadiista nabigeena iyo waliba tafsiirka Quraanka Kariimka ayaa bishan waxa uu bilaabayaa fasal cusub ee waalid adiga ilmaha geerba ka noqda dugsigan ayaa ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca qofku isaga ayaa dooranaya goortuu haleelaya isla markaana uu ka cilmi qaadanayo hadaba wixii faahfaahin waxaad haata ka weydiinaysaa taleefanada shaashada kaaga muuqda balateenu waa Albadal Quraan Online xarunta quraansaarka ee Al-Shifa quraansaar online ilaaba wax daweeye amarna waa kii Ilaahay dadaal baasana saaran dooc kastoo laga eegay dhitoorna ku daalay dabadeedna ka qoostay doorkan maanta baldaymo kalaamkii daa'inkeena ayaanu doorkan ku seegin xarunta quraansaarka ee Al-Shifa online waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaareynaysaa inay soo kordhisay daweynta jinka isha iyo sixirka ilaahba wax daweeye hadaba nagala soo xiriir lambarada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda ha moogaanin xarunta quraansaarka Al-Shifa quraansaar online madaxweynaha Suuriya maanta wuu hadlay dabcan
waraysi lala yeeshay oo uu la yeeshay New York Times wuxuu leeyahay waxaan doonaynaa horta ugu horeyn inay caalamka ogaadaan gaar ahaan Mareykanka wax walba oo halkan ka dhaca inuunan saameynin kaliya dadkeena oo ay saameynayo oo saameyn ku yeelanayo dowladaha dariska ah kow iyo caalamka xataa sidaa darteed waxaan ugu baaqaynaa in cunaqabateynta naga qaadaan darad hadal waxaa jira dabcan inta bilaabay ma aanan dhammaystirin waan ilaaway bal kaana aan ku darno wax weeyaan yani wuxuu u baaqayaa dabcan in cunaqabateynta laga qaado ciidamada Mareykanka darad marka maxay dhaheen yani waan ka baxeen Mareykanka wuxuu yiri Suuriya dabcan waxaan rabnaa inaan ka baxno laakiin waxa qosol lahaa intay uga baxeen ma taqaanaa yani saldhig weyn ay halkan ka degan yihiin waxay leeyihiin marka halkaasi ayaan u guureynaa qayb ciidamadeena ka mid ah qayb kale halkaasaan u guureynaa qayb kale yani Suuriya gudaheedaan ku baxaynaa ma hal saldhigay joogaan dhowr saldhig kale ayay yeelanayaan arrintaasi madaxweynaha Suuriya wuxuu yiri ciidan walba wadankeena jooga dabcan ma aanan iska joogaan waa inaan ka wada hadalnaa macna maxaan ogolnahay maxaanan ogolan ikada ogowna hadda waa arrin aad u culus ayagoo dabcan hadda ciidamadan jooga yimaadeen qoladan walina si rasmi Mareykan uma aqoonsano dowladan si hadii loo fiiriyo marka adiga waa xaalad cakiran iska dheh taan halkaas oo tageynaa dhinaca kale Urdun iyo waxa ka socda Urdun waxaad ogeedeen rag ikhwaanul muslimiin lagu tilmaamay inay kamid yihiin in lagu qabtay ayagoo qaraxye iyo maxaan ku dhahay drones iyo sawaariikh iyo goobtii laga tuuri lahaa adduun diyaarsaday tayib dowladda Urdun waxay tiri marka dhowr sanad daba soconay ugu dambeyn waxaan aragnay hadda adduunka inay leeyihiin Xamaas waa tay soo booday tiri dadkaasi adig idama soconay cadow kale ee ummadda dabcan ama Falastiiniinta rafaadiya Israa'iil ay ula jeedaayeen ay u socdeen ee soo daaya Urdun waxay Soomahan Urdun marka go'aan degdeg ay qaadatayba maalin kadib ragga marka la xiray ikhwaan muslimiin waa mamnuuc oo maxaa laga sameeyaa dadkan xisbi dhan weeyaan dabcan oo Urdun ka jira oo yani baarlamaanka kamid ah marka maxaa laga sameeyaa ma sheegan karaan hadda kadib waa inaad ka dhaxbaxdaa ikhwaan muslimiin hadda tahay waa inaad dhiibtaa yani aad dhahdaa kamid ah almuhim arintii Masar oo kale ma dhici doonta halkan ma ka awood badan yihiin المهم arintaasaa jirta yani kolley khilaafaad ayaa dhici doona ayaamaha soo socda sida loo badinayo Urdun gudaheeda gaar ahaan xisbigaasi weyn siyaasad ahaan u weyn Urdun taageerayaal badanna leh xisbi siyaasi ah oo shaqeynaya oo hanti leh oo maxaan ku dhahay yani taageerayaal badan haysta oo la soo doorto wayaan marka almuhim arintaasi waan arkaynaa waxay ka dhahan wali ma inaan soo jaabin ma rabtaa inaad barato sida lacag xalaal ah looga sameeyo online ku soo biir dulmidi.com oo hel koorsooyin faahfaahsan oo ka caawinaya inaad horumariso xirfadahaaga waxaan hadda u fududeynay dadkeena inay lacag ka sameeyaan internetka dulmidi.com waxay bilowday barnaamijka affiliate-ka halkaasoo aad ku kasban karto ilaa 30% commission adiga oo dadka kale u gudbinaya koorsooyinkeena ma jiro wax maalgelin ah kaliya iska diiwaangeli hel linkaaga gaarka ah si aad u bilowdo lacag samaynta ka mid noqo kuwa lacagta xalaasha ah ka sameeya internetka haddii aad u baahan tahay caawinaad nala soo xiriir lambarka ka muuqda shaashada qoraal ahaan ama cod ahaan hana soo wicin booqo dulmidi.com oo bilow lacag samaynta maanta dhinaca kale hal mar askarigii ama askariyan dhihina ii sheegay waa tunnel dhexdiisa meeshan hadda waxay socdaan waa maxbuuskii ay haysteen Xamaas waa kaasa gudaha ku jira asaga hadli doona marka waa kaasa almuhim waa Israa'iil iyo halkaan markan in loo galo ogow waxaa lagu leeyahay mar alla marka video noocan oo kale ay Xamaas soo gudbiso Netanyahu inuu suuxo ku sigtaa bal video ayaan hadda diyaarinayaa oo insha Allah taala mar dhow aan sameyn doono adiga yani warbixintan ururinaya waxay ku saabsan tahay qaabka iyo nolosha ay ku jiraan saraakiisha ama madaxda ugu sareysa Israa'iil gaar ahaan Netanyahu iyo yani sida ay ugu noqdeen videoyadan ay Xamaas soo bandhigayso inay ku ridaan yani suuxdin mar alla marka ay soo rido waxa guarantee ah hadda maanta la soo daa videogan caawa guarantee waxa ah in mudaharaad iyo balaayo isqabsan doonto in khilaafaad hor leh ay dhalan doonaan balaayo walba yani oo hade ma yara ma sahlana waana tan ay inta badan leeyihiin oo xataa wasiirkii difaaca ee dalad iscazilay ama alcazilay afwan Yoav Gallant oo ka hadlay oo yiri Netanyahu waxa kaliya oo ka baqo waa video ay soo gelisay Xamaas wax kale kama baqo maxaa yeelay shacabku ku kicinaya ninkan xukun jaceelka meelo maraayo wax walba u sameyn karaya arintaasi taana halkaas uga tagaynaa dhinaca kale videogan cidii aragtay kulay wax la soo bandhigi kara ma ahan waxaad arkaysaa ama haddaan san usoo dhaweey xoogaa jaranjaradan ayay kasoo dhaceen ciidamada Israa'iil ayagoo isdhahaya dabaqa fuula oo qoryahooda wato oo dagaalamaya ama xabado turturaya weliba ayaa hal mar bambahe loo soo dhiibaya
agtooda marka bam saa u weyn inuuna ahayn waxaa ku garanaysaa yacnihi adiga saameyn rasmi ah ama meel inay dumiso oo kale ma samaynayso keliya adiga qarax ay fir noocaasay samaynaysaa askartii meesha joogto marka bada markay sidaa loo soo tuuro ay dhacdo ay qaraxdo xabadaha hal mar lasoo sidaa loogu soo harqinaya markaas hata jaran miyaa meesha mas-uul markaasay qaylada oohinta kada watay ka soo baxayaan almuhim videogan marka waxaa lagu falanqeynaya waxaa laleeyahay hadde waa kuwaas ragga carab oo dhan heerigaystay bakdinta iyo filinimada iyo wixii la midka ah ugu dambeyn هذه الأنفاق حفرت في معركة طوفان الأقصى والجيش بيقول إنه نقدر بأن يعني مساحة الأنفاق في غزة nashiidadan in lagu qabsadaan laga yaabaa ilaan ayaamahan ma ogtahay yani nashiido kada xataa qur'aanka caadiga ahaa qur'aan sudaysi uu leeyahay ama mashaaric faasi uu leeyahay haddii aad waxyar kusoo darto wabillahi tawfiiq copyright agaab kugu qabsana intaanan youtube kada la gaarin marka siday ahaataba nashiidan waxaa laga yaabaa marka in maxaan qur'aan la qabsan marka meeshaas ku joojina almuhim siday ahaato anaa warbixinta idin siina wuxuu leeyahay israa'iiliinta waxay dhaheen ghaza tunelada ku yaala xilliga uu duubo marka waa bishii 12aad 31geeda oo berita ay tahay January 2025 xilligaas oo duubay videogan laga duubay isaga bil kormiya salaw bil kormeelahaas marka la dilay almuhim wuxuu leeyahay marka waxay leeyihiin 450 kilomitir ayaan ku qiyaasaynaa tunelada Gaza ku yaala wuxuu leeyahay 450 kilomitir inta dagaalku u socday kaliya qodanay wax kala sheegaysaane yaa xusuusta video dheer Al Jazeera ay soo deyn jirtay hadda ka hor oo iga hadlaysay tunelada inaynan ahayn macnaha xilliga hadda nabadda la qabaa la dhisaya kada inaan ahayn oo Xamaas ujeedadeeda macnaha ujeedadaan inay sheegay istiraatiijiyadeeda ay kamid tahay in tunelada ay socdaan dagaal ha socdo iyo socon nabad ha lagu jiro yani tunelada waa in la qodaa waaba caadiyan noloshii caadiga kamid tahay ilaan si kale looma badbaadi karo wuxuu leeyahay marka 450 kilomitir ay sheegayaan in tuneladeena dhan ay yihiin inta dagaalka socdo unaan qodnay 450 كيلو متر إلى 600 كيلو متر saasay ku tilmaamaan leeyahay احنا برد عليهم ونقول له waxaan ku leeyahay إنه اللي تم حفره في معركة طوفان الأقصى وكا. 450 كيلو متر dagaalka intuu socday toofan al-aqsa intaasi weeyaan intaad sheegteen laakiin wixii ka horeeyay hadee lama tirin karo leeyahay almuhim intaas waa intii ugu dambeysay salaamu alayhi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh dugsiga albedel quraan online oo ah dugsi lagu barto diinteena islaamka isla markaana ardaygu muddo aad u kooban ku xifdiyo quraanka kariimka kuna baranaya barashada higaada afka carabiga baranaya culumta kala duwan ee quraanka kariimka iyadoo loo raacinayo qaybaha kala duwan ee shareecada islaamka ugu waaweyn yahay barashada axaadiista nabigeena iyo weliba tafsiirka quraanka kariimka ayaa bishan waxa uu bilaabaya fasal cusub ee waalid adiga ilmaha geerba kow ka noqda dugsigan ayaa ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca qofku isaga ayaa dooranaya goortuu haleelaya isla markaana uu ka cilmi qaadanayo hadaba wixii faahfaahinna waxaad haata ka weydiinaysaa taleefanada shaashada kaaga muuqda balateenu waa albedel quraan online xarunta quraansaarka ee al-shifa quraansaar online ilaah baa wax daweeye amarna waa kii ilaahay dadaal baasana saaran doc kastoo laga eegay dhitoorna ku daalay dabadeedna ka quustay duurkan maanta baldaymo kalaamkii daa'inkeena ayaanu duurkana ku seegin xarunta quraansaarka ee al-shifa online waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaaraynaysaa inay soo kordhisay daweynta jinka isha iyo sixirka ilaah baa wax daweeye haddaba nagala soo xiriir lambarada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda ha moogaanin xarunta quraansaarka al-shifa quraansaar online haddii aad tahay qof raba inuu guri ka iibsado magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Parklands waxaan ku hayaa shirkadda dhista guryaha casriga ah ee Afnan Homes Ltd. Xilligan shirkaddu waxay wadaa dhismaha guryaha ama apartmentyada kala ah Kawaakib 1 iyo Kawaakib 2. Guryahan waxay ka kooban yihiin 2 qol iyo fadhi, 3 qol iyo fadhi, 4 qol iyo fadhi ilaa iyo 5 qol iyo fadhi oo intoodaba markaasi uu la sii socdo qolka shaqaalaha oo dheeri ah marka laga reebo 2 qol iyo fadhiga. Sidoo kale adeegyada guryahan kugu raaxsan waxaa kamid ah masjidkii, madraso, gym, supermarket, meel ay caruurtu ku ciyaaraan iyo sidoo kale waliba beer lagu nasto. nidaamka lacag bixintana waa mid aad u fudud waxaad lacagta ku bixin kartaa muddo 2 sano ilaa iyo 3 sano si tartiib ah ka iibsashaduna waa mid la isku halayn karo sharcigana waafaqsan hadba haddii aad su'aalo kale qabto fadlan la xiriir taleefanada meesha ku qoran ee shirkadda Afnan ma rabtaa inaad barato sida lacag xalaal ah looga sameeyo online ku soo biir dulmidi.com oo hel koorsooyin faahfaahsan oo kaa caawinaya inaad horumariso xirfadahaaga waxaan hadda u fududaynay dadkeena inay lacag ka sameeyaan internetka dulmidi.com waxay bilowday barnaamijka affiliate-ka halkaasoo aad ku kasban karto ilaa 30% commission adiga oo dadka kale u gudbinaya koorsooyinkeena ma jiro wax maalgelin ah kaliya iska diiwaangeli hel linkaaga gaarka ah si aad u bilowdo lacag samaynta ka mid noqo kuwa lacagta xalaasha ah ka sameeya internetka haddii aad u baahan tahay caawinaad nala soo xiriir lambarka ka muuqda shaashada qoraal ahaan ama cod ahaan hana soo wicin booqo dulmidi.com oo bilow lacag samaynta maanta